waxaanu ku soo qaadan doonaa sida la sheegay laba wariye oo lagu xiray magaalada Laascaanood labadan wariye ayaa waxaa la sheegayaa inay u shaqeeyaan Universal TV-ga iyo Home Cable TV-ga sida ay ku soo waramayso shabakada wararka ee Laascaanood online ayaa waxay sheegaysaa in labada wariye lagu xiray magaalada Laascaanood oo kalena laguna jir dilay haddaba barnaamijkayga aanu ku sugnaa cidda dambeysay iyo sababta loo xiray labada wariye waxaan rabnaa inaanu bal ku qaadaa dhigno iyo saameynta ay ku sameyn karto shirka ka socda magaalada Taleex sida aanu ognahay Home Cable TV-ga ayaa waxaa laga leeyahay dhinaca Hargeysa halka Universal TV-guna ay xaruntiisa ka tahay wadanka Ingiriiska xaruntiisa ay ku taala magaalada London ma aha markii koowaad oo la dhibaateeyo suxufiyiinta ka warrama xaaladaha Soomaaliya iyo siyaasadda Soomaaliyaba waxa kale oo ay saxaafadu qoraysaa in uu xiritaankaasi uu shuqul ku leeyahay wasiirka warfaafinta ee Somaliland xabsade haddaba bal waxaan ka waraystay Maxamed Maxamuud oo isagu ah tafaftiraha Darwish TV bal arintani saameynta ay ku sameyn karto marka koowaad shirka ka socda magaalada Taleex أحمد الله حسن تاي مركب ورئيسة سيداد الشيكتي ما أنت وحلا حري اللي بوريه مقالة الله سعانود بان الله حري رنتي مع عدا إلى هذا صابته الله حري نمنك ورياشة كل يوا وحنا سلاي هاي وحيد بس عطا رنتي وكذا وتوها جودها ما مركب الله بحي سمالي لان وكعدي إن أي طلابك قاعد دونان شركة سعودة تلح runtii waxaan isleeyahay waa nasiib darro weyn oo u soo hoyatay dadka goboladaas degan waxay abuuri kartaa jawi baan isleeyahay colaadeed oo runtii aan hadda aanay u malaynayo inaysan diyaar u ahayn dadka wada dega ee gobolada waqooyiga Soomaaliya waxa iyaduna nasiib darro ah nimankan wariyaasha ah in la xiro sababtoo ah Somaliland waxyaabaha ay caalamka u sheegaan waxa kamid ah inuu jiro dimuqraadiyad ama waxaan la yiraahdo saxaratul qowlka ama saxaafadda xorta oo dadku inay xaweeyeen xor yihiin waxa halka ka cad in aan wax xorriyatul qowli ka jirin dalka magaalada Laascaanood oo kale oo ay yihiin dadkani dad u afduuban maamulka Hargeysa taasi runtii waxay abuuri kartaa dhibaato weyn oo qabaliya oo dagaal sukeeyay bay horseedi kartaa baan isleeyahay marka waa runtii arrin nasiib darro u soo hoyatay dadka gobolada degan marka waxaan hadda labada wariye oo la xiray mid kamid ah aad wuxuu uga warrami jiray Somaliland waana TV laga leeyahay dhinaca Somaliland ama Hargeysa waana television aad u fidiya mabda'a ama fikirka Somaliland maadaama uu bayahayba television fidin jiray qaas ahaan wariyaha Home Cable TV u shaqeeya oo isagu ahaa wariye u fadhiya Laascaanood Somaliland ma waxay diidan yihiin markii aan fikir kale bay diidan yihiin maadaama wariyahan uu ahaa wariye u shaqeeya ama fidiya fikirka Somaliland maxaa maanta kala fikra in la xiro isagoo berit shalayto warbixino fara badan Somaliland uga soo diri jiray Laascaanood bismillah marka hore waxa weeye horta ninkani waxaan filayaa inuu beelahan ka soo jeedo dadka degan gobolada Sool Sanaag iyo Cayn sida magaalo nagu ah inkastoo uu faafin jiray haddana wax wararka mataqaana ay xiiseynayaan dadka degan gobolada sheegay hadda iyagu inay Soomaaliya inteeda kale ka go'een runtii waxaad moodaa arrin caqabad weyn ku noqon karta saxaafadda xorta ah waa arrin runtii aan loo baahnayn oo dhibaato weyn abuuri karta iyo wax aan mataqaanaa bulshada iminka waxaynu maraynaa waqti 2002 alif baynu maraynaa 2012 waxaan isleeyahay adduunku maanta wuxuu marayaa marxalad qof kasta waxa uu aaminsan yahay la dhageysto sax iyo khalad waxay tahayba oo dadku waxa weeye qof walbana lagu qadariyo waxa uu aaminsan yahay waxaan isleeyahay haddii uu ninkani markaa ka warramo fikirka shirka ka socda Taleex waxay muujinaysaa dad waxa la yiraahdo xorriyatul qowlka inaysan ahayn inay waxaan ay adduunka u sheegayaan oo ay leeyihiin xorriyad baa ka jirta ama dimuqraadiyad baa Somaliland ka jirta inay tahay wax aan waxba ka jirin
arrintu waxa arrin adduunyaduna runtii il gaar ah bay hadda ku fiirinaysaa arrimaha ka socda gobolada Sool Sanaag iyo Cayn taasina waxay noqon doontaa waan isleeyahay arrin markaantiba doonta ah xariga labada wariye ee lagu xiray magaalada Laascaanood kale in wariyaal sidaan war ku haynay ilaa ay soo far ma wariyaal war ka soo qaaday Taleex oo yimid Laascaanood inay war ka diraan ba mise Laascaanood gudahooday rabeen inay war ka sameeyaan oo alamka waxa ugu maqaala ah in Somaliland aad uga xanaaqday markii Universalka ay sii daayeen warar ay ka soo duubeen magaalada Taleex arrintan maxaanu kala soconaa ilaa hadda كل طبعا حريرك يوم لسه بيني مجالده iyo كل ورياش nimankan niman wariyaal bay ahaayeen base-kooduna wuxuu ahaa ma meesha ay ka xarun waahid iyaga sida inuu ka warhayno magaalada Laascaanood waxay warka ka soo diri jireen inta gobolka Sool uu ka kooban yahay gobolka Sool wuxuu ka kooban yahay dhowrka degmo kullayba iyaguba warka uga diri jiray wariyaasha TV-yada ay u shaqeeyaan iyo halka iyaga usoo tabin jiray wararka marka waxaan isleeyahay kullay iyagoo ku guda jira hawl maalmeedkoodii shaqo sida aynu warka ku hayno baa waxa loogu yimi meel ka tirsan magaalada Laascaanood guri ku yaal magaalada Laascaanood baa lagu soo weeraray adigu ciidamadii booliiska ee Somaliland u yimaadeen deetana halkaas ka kaxaysteen iyaga iyo niman dhalinyaro ah sida la sheegay oo asxaab la ahaa nimanka wariyaasha baa meesha lagu yimi deetana booliisku waa meesha ka kaxayay waxa kale la sheegay sida aad u sheegtay in wariyaashu in nimankii meeshii la jirdilay oo dhibaato weyn loo geystay oo aan xeer caalami iyo xeer Soomaalinimo midna aan ku salaysnayn oo runtii aan waafaqsanayn shuruucda caalamiga ee u degsan wariyaasha marka waxay uun sii laabaysaa dhibaatadii ka jirtay goboladaas baan isleeyahay maadaama uu shalay nin wasiir uu ka hadlay arrintan maanta nin kale oo wasiir lagu eedeynay inuu wariyaashan xiray ma kula tahay muuqaalka ka soo socda xaaladda goboladaas iyo shirkan inay wanaagsaneyn oo laga yaabo Somaliland inay meesha colaad ka abuurto maadaama ay saxaafadda indhaha ka xirtay kullayba haddii meeshii uu yimaado gacan ka hadal oo wariyaashii iyo afduub ay noqoto in dadkii saxaafaddii indhaha la qabto waxay noqonaysaa dabcan kacdoon dadweyne inuu iman karo oo dadku ay kacaan oo mataqaanaa dhibaatadii ay sii laba jibaarto waxa kale oo iman kara carada ay u hayaan dadkan gobolada Sool Sanaag iyo Cayn maamulka Hargeysa inuu iyadana sii laba jibaarmo oo dadku ay waxa weeyaan waxa aanay munaasib ahayn ku kacaanba oo ay waxa weeye dhibaato weyn meesha ka bilaabato arrinta kale oo isweydiinta mudan baa waxay tahay sida wararka nagu soo gaarayo waxaa jira dhibaatooyin laga soo sheegayo xagga maxaan ku raahdaa guud ahaan Soomaalida oo dhan saxaafadda meediyaha in dad badan lagu dilay Soomaaliya in xamar waa dhaweyd lagu dilay nin askari ah oo ku joogtay nin sidaas oo kale aan filayo inuu u shaqeeyo telefishinada waliba home cable TV-ga waa dhaweyd dhinaca Garowe ayada naftigeeda arrimihii ka dhacay dhinaca Taleex nin waxaa jira wariye ah oo isaga sidaas oo kale xabad ay ku dhacday maadaama ay dhibaatooyin caynkaas oo kale ah ay soo wajahaan dadka ka shaqeeya macnaheedu saxaafadda tala ahaan maxaad siin lahayd maadaama ay arrimaha xasaasiya lagu jiro tala ahaan dad badan oo wariyaal ay dhulka u kala safrayaan telefishinno badan ay joogaan dad badan oo raadiyaal ama website-da wararka u dira ay joogaan maxaa tala ahaan aad macnaheedu u soo jeedin lahayd bal inay nabadgelyadooda macnaheedu ay ka fikiraan wararka diraysa كل أحمد هرت جود حانسين الله سبحانه ورياش أدونك ملك صعيد شو جنبه وكل بينهن ما كأي هادين يعني صحافة أما أي ور ملك صغيرين قف كست أو ملك قف هادين يستوحوا هي عدو هي سببته ملا عن هبونين أو خطر أو نفط وظهرس جرين كرا أي كسور رميان أنت بدن ورياش أدونكو أنت هذا على الصومالي كده عيانا وحيقون كسي waxay ka mid yihiin dhibaatada adduunka intiisa kale inay la qabaan inkastoo dhibaatada Soomaaliya taala oo xagga haysada wariyaashu ay ka sii daran tahay oo midalan adduunka intiisa kale de waxa ku jira sharci iyo nidaam qaanuun caalami ah oo dadka xira oo qofkii ku xadgudba shuruucdaasi uu noqonayo qof crime international crime galay laakiin Soomaaliya waxay wadaa meel aan
cidina war si fiican ka haynin oo aan si fiican loola socon waxaan qiyaasayaa hadda international community-ga iyo adduunku inuu Soomaaliya u soo jeedo oo uu waxa weeye indho gaar ah ku fiirinayo waxyaabaha Soomaaliya ka dhacaya oo ama wariyaasha lagula kacayo ama lagula kacayo dadka barnaamijyada ah oo aan waxba galabsan qaabka ugu wanaagsan oo hadda wararka looga helo dhinaca taleex waa maxay ma telefoonada in la wacaa oo dadka la wareystaa ma xagga shabakadaha TV-yada miya waxaan malaynayaa TV-yada naftigooda waxaa lagu yiri internetka aad buu u liitaa sida la hadligay qaabka ugu wanaagsan waxaan malaynayaa wararka wariyaasha laga helo oo adigoo by telephone kula xiriira sidaad la socoto magaalada Taleex markii hore sidaynu warka ku hayno waxay ahayd magaalo aan lahayn xiriir fiican oo xagga internetka ah inkastoo nasiib wanaag intii shirku hadda bilowday ay jiraan kambaniyo isku hawlay in ay geeyaan internetka waxa hadda la sheegay in si haqab la'aan ah internetka loo isticmaalo hadda magaalada Taleex oo wariyaasha ka soo tabinaya warka magaalada Taleex ay si haqab la'aan internetka ku helayaan dadkuna telefoonada ay caadi uga soo dirayaan iyagoo aan wax dhibaato ah kala kulmin aad iyo aad baad u mahadsan tahay caawa barnaamijkayga waxaanu ku soo qaadanaynay wariyaasha la sheegay in lagu xiray magaalada Laascaanood waxaan u rajaynaynaa in bal xorriyadooda si degdeg ah loogu soo celiyo maadaama ay sameeyeen waxa dambi ah inta aanu ku kulmi doono barnaamij la mid ah habeen dambe waa anigoo Axmed Laari iyo anigoo Maxamed Maxamuud waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo